السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي إذا شرفت إيه قيمها يغايها بدن سود هذا ومسكين كي مسكين عاوي هذا برتين برنامج شطي له ما نقول بالدنيا على ذاك جبتين سود هذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سود هذا أصحابتي إذا قيمها يغايها بدن ومسكين كي مسكين عاوي ومرول بقى إلا تاجن وركي قدام بيجي هنا إلا وذاك. سود هذا أصحابي بريها واسويني واكل قوني ميل والباء جوجتي وحان لي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريها وحان كم مشغول سنة مامدي هويدي الصومالية اللي بنيت إرنضة ومضى الصومالية الصو عاويين إلا حد إسبتال كجرتا إرنضي واقلني وهو قولستين لكن مامدي تبعان حالي سواي إلا سيدح دي بريو قدام بيسي مامدي تبعان أيتاي مركا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مركا أنيق indhahayga wajigay waad uga jeedin maamadii markii aan qalay cidaan uga tagay ayaan waayay habeenii maalinta 24 hours maamadan jooga habeenkii dhan waa soo jeeda maalintiina waa soo jeeda marka wax iga bedelan waayay marka way ila noqon weysay inaan maamadii saas uga tago oo aan intaan qalo ka tago marka maamadan ayaan tan la joogo ku rafaaday marka alxamdulillah caawa ka soo tagay waxaan yahay asxaabteyda wa alaykum asalaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. asxaabteydii balaan gaarsiiyo marka waxaan rabaa inaan la wadaago wararkii ugu dambeeyay qaraxii magaalada muqdisho ka dhacay midaaminta xirada ciidamada ee ku taala duleedka magaalada muqdisho oo isku qarxiyay qof naftiisa hore ah sababaha keenay iyo intaba iyo dhaliilo aan u jeedinayo ciidamada gorgor ee dadka shaqaaleysiinta ciidamada booliiska Soomaaliyeed iyo ciidamada sida gaarka u tababaranay haram waxa lagu galaa damiin cadayn qof la iska qoray aniga hadda gorgor hadaan rabo malay qoray may waa in la baaraa waa in la ogaadaa waa in qofkaasi la cadeeyaa waa in qofkaasi sheeg maxaa la yiraahdaa la soo ogaadaa marka waxyaabaha ugu yaabka badan meesha ka dhaca waxaa kamid ahaa in dayac uu ka jiro oo sida wararka aan helayo qaar kamid ah leeyihiin dadku waa la iska qoraa gorgor maarta ha barraf maxay ku dhacday macquul ma in ay hadda dhalinyaro badan oo dalkooda raba inay daafacaan oo shabaab ka daafacaan ayaan taa dhanba waxay raadinayeen shabaab meel isku qarxiyaan oo ciidamada dawladdu wallahi oo billahi inaan ku sheegin waxay qabsadeen galabta ciidamada dawladdu deegaano aad iyo aad u badan hoostaga degmada Afgooye ee shabeellada isku xira shabeellada dhexe oo ay deegaano aad u tiro badan ayaa laga qabsaday shabaabkii oo tuulooyin aad u badan lagu laayay shabeellada dhexe meel yar ayaa ku dhiman sidii shabeellada hoos looga dhameeyay magaalada muqdisho sidaas qaraxyadii dilka u soo gaari waayeen marka waa dareemi kartaa inay raadinayaan xiro ay isku qarxiyaan oo ay gorgor iyo ciidanka ay joogaan marka ciidamada booliiska cadeema ayaa lagu qorayaa ciidamada haram cadeema lagu qorayaa niisa cadeena lagu qorayaa kaliya waxa easy loo qoriyo ciidamada gorgor waay maxay ku dhacday in la iska qoro aniga hadii la hal qoro ma la iska qoraa macnaani ma ogibe ma bal yaqaani magaca Axmed Ali Jimcaale magac been iska qorto حنلي ضيع عاصم مسؤوليتي اسكالة إن لخاط دل كان من ليس أمينك إذا ما البوليس قالوا دمينا لقاربا وحلي أدم أني كان كمسؤول ها نكان دور دوات كيس أدم كمسؤول ها نكان إنه الشباب هن أكتاي بروح كوي معنا إسكيلالي نكان سيما دمينا نايمرك لكن الدو يقان وايد دمينا حلي نكان أنا أغار ونكان إنسان لكن قرقر ورك يعني هيليو dadku waa la iska qoraya waana qalad mid koowaad dhalinyarada ku dhimatay ee rabay inay dalkooda daafacaan oo markiiba hore go'aan ku gaarin inay dalkooda u dhintaan aadan uga mahadcelinayaa ciidamada gorgor iyo darabna waa dhiirigelinaya weerarka iyo deegaanada ay qabanayaan waxaan leeyahay keep going mar walba niman jabinayso ciidamada la leynayo ama ciidanka dawladda ka dhimanaya mar walba waxaan leeyahay keep going hore u socda insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo muqdisho sideedu ku soo noqon doontaa waxaan rabaa qof walba idaawanaya meel walba aad joogteen waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh. waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha la xiriira Saadiq John ee tagitaanka magaalada Dhuusamareeb waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay wax badan la socdaan baasho haday noqoto in la iska fiiriyo dawladdan cadow badan ay leedahay madaxweyne Farmaajo cadow badan ayuu leeyahay laakiin aniga waa isii jeclaysiinayaan maalin walba marka arka cadow dawladeedii dalkayga waa sii jeclaanaya waxaan rabaa inaan cadow u sheego marnaba niman jabinaysa tallaabo walba aad qaadaysiin
mana ninjibin doonto insha allah hadduu ilahay madaxweyne farmaajona waa guulaysan doonaa hadafka iyo guusha uu leeyahana waa gaari doonaa shacabka soomaaliyeedna rajada ay leeyihiin waa gaari doonaan muqdisho waxay kusoo noqon doontaa caasimadii africa laga yaqaanay ee loo soo shaqo tegi jiray shacabka soomaaliyeedna dalkoodii ku noqon doonaan madaxweyne farmaajona waa ku guulaysan doonaa doorashada soo socota waxaan leeyahay shabaab iyo cadowga soomaaliyeed ee mucaaradka ah marnaba nama jiidin doontiin waxyaabaha ad ku dhaqaaqaysiin marka waxaan rabaa qof walbo daawanay qof walbo isfiirsa inaad caawa fiidooga sheergaraysiin xogtii ugu dambeysay ee saadiq john tegitaanka magaalada dhuusamareeb ayaa in kaga hayaa markii uu soo gaaray ani beryahan facebook lama socon been maynii sheegayo qarax laftigiisa meeqaa gormaan maqla mataqaana maqribadii maba ogeyn ma facebook ma fiirin because sababto ah marna maamadan aan dul fadhiyaa marna maamadan daawo u doonaa mar dhakhtaraan u yeeraa aniga dhan waan daal markaan banaan kusoo baxana waan wax yaraan lisanay taleefon ma sii fiiri karo marka waxaan ka codsanayaa inuu qof walba muuqaalkaa sheergareeyo waxawaa dalkiina waa u shaqaynaynaa wiilkii yaraana qalinkiisii gabadhiiya maalintii iska xanuunsanayd meel fogna la aaday maantaan geenay digfeer isagana waxaa la yidhi maalin in la jiifiyo waaye marka talaado iyo arbaco iyo khamiis iyo jimco iyo waxaana lama jiifiyo waxaana lama qalo waxaa wax la qalaa isniina la jiifiya talaada la qalaa sabdiyaa la jiifiya axada la qalaa marka sabdigaan geen doonaa isagana hadduu ilah yihahdo isagana sabdiga ayaa la jiifin doonaa axaddana waa la qali doonaa maamadan insha allah guul ayaan urajeyna wani soo kici doontaa marna tii shaqadii ilaahay loogu dhawaanayay marna tii dalkeena iyo dadkeena lagu daafacayay ayaan ku jirnaa marka waxaan rabaa maadaama aan ka maqnaaday waxaan maqlay dad badan oo ka faa'iidaystay aniga maqnaashaygii xogta ugu dambeysay maamooyinka iyo aan siinayay marka waxaan rabaa dalka dowladda ka jirta awood leh oo beesha caalamka african union aqoonsiin nin tuuga iyo nin qabiilistaa aqoonsi ma laga rabo dowladdan inay awood leedahay sheekh shariif iyo xasan sheekh cabdiraxmaan camshukuur iyo shambalowshi waxba laga weydiin waay iyo dahar cali sow iyo waxaan rabaa mar walbana waa inii sheegaa dadkiinaan i daawanaya mar walba waan kugu celiyaa mar labada waan kugu celiyaa war dhegaysta warkaygana si fiican u dhegaysta oo wallahi daacad iga tahay war shiino culey war duqbilow war soorbidaar nimankan kale daar cali sow iyo bilwani iska dhaaf iyo shiin maxamed carabi intaas waa mucaarad inta mucaaradka iska dhaaf laakiin inta dadka maalinna u ammaana oo views ku raadiya oo youtube-ka lacag weela maalinna dowladda caaya waxaa ka mid a maxaa duqbilow aaminina waxaa la ii sheegay maanta hooyo soomaaliya soo wacda inuu yidhi madaxweynihii waxaa taleefonka qaban waayey ra-iisul wasaare ruuxaas views ma lagu raadiyo sharaftaadii magacaaga ku lumas ra-iisul wasaare rooble iyo madaxweyne farmaajo hal guriga wada degayiin cid bini aadana oo dareemi karta war farxiyo daahir farxiyo daahir xildhibaanadaydii waa wareeyey waxaa soo gashay maamo qarana meeshaan soo gashay farxiyo daahira soo gashay qofkii ugu dhiigga ahaydii walaashayaa soo gashay farxiyo waa kuu xiisnay wallahi waana reer muqdisho waa ku tabeen farxiyo adi iyo hanaba insha allah aniga caash maxaa magaciisii shamso waa ini tabnay insha allah hadduu ilaah iyo cali dhoof marka waa inu sugayna hadduu ilah yihahdo farxiyo daahir soo dhowo maamo qaran waa kuu jeeda allah ku sharfo soo dhowow aniga markaa adiga ku arko waa kuu taagana sharaf iyo magac iyo adigoo dadka maamooyinka adigoo kale hadday ahaan lahaayeen dalkan mar roor gudmi laha farxiyo daahir waa ku salaamay walaashii qaaliya adiga iyo hana iyo waa ini salaamay shamsana waa joogtaa mar walba waynu suganaa insha allah ilahay nabadaynu kusoo celiyo marka waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego war daqbilow iska daaya wuxuu weyna arkay inaad xayawaanantiin maalintaa farmaajo waa guul farmaajo a u sheergaraysiin maalin uu farmaajo iyo dowladdii iyo dadkii isku diro marka waxaan rabaa walaalayaalow ninka qabiilka ku shaqeeya balwaan maxaa magaciisii muxuu ahaa daqbilow intii lacag loo sheego mucaaradka lacag u sheegeen oo ayaantii mucaaradka ay kacsanaayeen ayuu u wareegay mucaaradkii oo la yiri lacaga lagu siinaa uu yiri aabeya la xiray isagoo dowladda caynayo dowladdii farmaajo caynayo farmaajo qaa'im waayo bababa dadkii la ogaa waad aragteen marka waxaan leeyahay mar walba in weydiinaya mar walba inii sheegaya dadka aad daawanaysiin waa la fiiriyaa war qofkan haddaad bil fiirsato bisha dambe aad weji kale ku aragto facebookiisana blog iska saar flowgaana kakala noqo youtube-kiisana subscribe ka qaad gamaleelkan ka furo dislike-na saar bes
isagaa maalmaha ka isweydiinaya oo leeyahay warniyo maantana farmaajoan taageeraya dadkii mana hayee maxaa ku dhacay ninkaan lain karaba war balwaan shiino coley soolo bidaar saddexda marna dowladda taageerta marna ka tagtay kuwaan mucaaradka iska dhaafa saddexdaas nin facebookyadooda ka hara wallaahi oo bilaahi watala waa ku wareerisay maanta waxaa laii sheegay inuu yiri duqbilow madaxweynaha taleefon waxaan ka qaban waayey roble madaxweynaha taleefonka iska dhaaf kama qaban kare 9 saaco habeenimo marwadiisa hadda roble waxay joogtaa madaxtooyada sida maalin aan arkay iyadoo marwada madaxweyne farmaajo lama suuran iyo gabdho kale lama suuran waa arkay oo xaaskii ra'iisul wasaare madaxtooyada isla degeen 9 saaco habeenimo iyo ko isla hurdaay 9 saac xaaskii roble iyo ko hurdaay 9 saac habeenimo farmaajo taleefon hadda usoo kala hurdada ka kacaya meesha ay jiifaan farmaajo keenay qof walba intaas ogaado dalkan farmaajo xukuma cid walba isbedeshay daaqada ka baxay shamalosh isbedelno samimada isbedelno reedi isfaan dhigis daahir guulid isbedelno cid walba adar meeshaas ka baxay farmaajo cid wax ka qaadi karta ama cid taleefon ku dhageysan karta habeeraatay mal mar walba inay sheega wax fahma waxna aqriyo ra'iisul wasaare aniga imaadaraana ina habgeeda asalna saddexda wallahi 10 saac habeenimo taleefonka madaxweynaha isku dhageysan karo madaxweynaha taleefon ku dhageystay madaxweynaha taleefon ku dhageystay waxaas dhageysanaysa war qof horta caafimaad ma yahay mowduuc ka hadlo waay ani markaan mowduucan ka hadlo waayo oo ku qasbanaa inaan marka aan ileen ininka inay aqaanaay oo waxaan jecelahay ininka oo wax walba inii soo gudbiyo marka codsi iga tahay waa in tixgelinaya waa in jecelahay duqbilow iyo shiino coley iyo soolbidaar iska daay saddexda wallahi inaan fahmi karin anoo ninaan ku wareer ma fahmi kartiin waa shaati bedelan yihiin views youtube-ka lacag ku raadinaya waa inuu barnaamij geeyo oo caaw youtube intuu dhigo oo ku qoro yiraahdo roobla farmaajo taleefonka qabo way maxaa dhacay ku dhufo intaas ka rabaa laakiin ani nuno caasa maahay aniga waxaan rabaa dalkaygii iyo dadkaygii iyo ciidankaygii iyo magaaladeydii inay noqoto meel sharaf iyo magac iyo ciise adduun iyo aakhiraba ay dadkooda ay noqdaan sharaftii iyo magacii nala ku yaqaan anaka islana anaka isduqaynana anaka isqarxinana anaka isdiidan Kenya iyo Imaaraadka oo naga faa'iido sorry igara laad anaka isdilan marka waxaan rabaa insha Allah duulaan adiga xoolo farmaajo u shaqeey farmaajo cid walba u shaqeys ani inta jooga horreys roble iyo mursal yaa u shaqeey iyo faad yaasiini ani xaqii jooga barad xil ma bahaye xoolo farmaajo u shaqeeyo leeyahay dadka inay wax bartaan wax aqriyaan u baahan marka waxaan rabaa oo muhiimadeeda aan u soo galay caawa waxay tahay fiidooga sheer garee waxaan rabaa inaan inii sheego arrinta Saadiq John aan rabaa inaan kala hadlo Saadiq John galmudug waxaa geeyay xogtii ugu dambeysay wallahi inii sheegay markii si fiican u dhigay Saadiq John waxaa waday oo inta ka waday mahasad waxaa magaciisi odawaa saabir lugay abshir buqaarigan aqalka sare gudoomiye ku-xigeenka ka ah rag kale oo mucaarada ayaa meeshan ka kixiyay waxaa la geeyay ayri ani wagaan mana waan soo wadaa marka fiidooga sheergalaya Saadiq John waan bixi karaa muwaadin Soomaaliyeed oo dawladda cafisan way hubkii waa lagala wareeyay wax dad u haysta male ciidan yara la joogo wiilan hal gaari oo ciidan bis la joogo oo ilaa wiilal lix oo la joogo oo ciyaalku isaga markii hore uu lacagta siinayay gobolka Banaadir ayuu dawladdu way diiday in lagu soo daro way isku dayeen mucaaradka inay ra'iisul wasaaraha ka dhaadhiciyaan in booskiisa lagu bedelo oo Farxaan Qaro laga qaado waa diiday madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dhowr mar kala hadlay ma yiri Saadiq John iyo wax la midka iyo shambalooshi iyo waxaas anigu dawladayda mamnuuci ka yahay meesha raba aad wuxuu sameyn karnaa samee way maadaama marka magaalada uu iska fadhiyo guri ilaa uu dhex fadhiyo weeri ya ku sheegay xaasaska muu yiri adiga gadaala ka soo maxanta dhaw comedy-ga kaaga jawaabi doonaa aan shaqada galo marka Saadiq John waxa meeshan ka waday mahasalaad oo diyaarada la raacay waxa uu tiin mahasalaad odawaa saabir lugay abshir buqaari rag kale oo mucaarad ka tirsan ninkii magaciisa muxuu ahaa 30 milyan haysta adiga dad badan
وما سنتي thank you dhammaantood ma yidhi waxaan rabaa marka qof walba waa mahadsan tahay qof walba waxaan rabaa marka inaan runta u sheego saadiq john maxaa la yidhaahdaa waa mahadsan tahay waxa meeshaan ka kaxeeyey waa raggaas saadiq john waxaa loo geeyey meel kale ma tegi karo oo haddii la geeyo puntland waxba kama qaban karo hirshabeelle waxba kama qaban karo meesha keliya ugu dhow oo uu dadku dili karo ama uu dad ku qabsan karo ama lagu ugaarsan karo xildhibaanada dowladda u tartamaya ama dowladda taageersan waa galmudug maxaa yeelay galmudug waxaa jooga fiqi oo wasiirka amni looga dhigo aniga galmudug waxaan u aadi waayo waxa fiiri tusaalaan kugu soo qaadaya waxaana nin habargidira waxaana nin saleebaan kula tahay in aniga qabiil meel degan galmudug wax iga qaadi karo waa may landheeraan ahay landheero ka dhashay deegaan leh dadkiisa iyo dadkooda bay u taagan yihiin aniga deegaankayga cadaado waa ka digi karaa hadda intaa dhoofa beri cadaado waa ka digi karaa waana inii soo masoogi karaa maxamed xasan thank you brother thank you walaalkay macaani maxamed xasan waa ku jeedaa birmingham thank you marka waxaan rabaa ujeedka halkaasi u tagay haw macanta waa ku salaamay amina luul waa ku salaamay habar dhammaantiin hana waa ku salaamay dhammaantiin waa mahadsantiin marka waxaan rabaa ujeedka u tagay intaa inaan iin sheego ujeedka u tagay waxay tahay in lagu qaarajiyo ama lagu dilo nimanka aniga sideedoo kale nimanka xildhibaanada u sharaxa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo taageeraya madax jabis bisaa loo geeyey fiqina waa joogaa saadiq johnna waa tegey labaduba waxay meesha u joogaan meesha keliya ee la tegi karo ee wax lagu dhibaateyn karo waa galmudug oo lagu siineyn karo oo hadduu madaxweynaha taga xataa lagu dili karo warkeyga si fiican u dhegeyso adeer aniga wallahi been kuma hadlo been ma sheego been ma buubuuniyo fiyus beena kuma raadin waxaa caawa igu kalifay inaan maamadii intaan ka soo tago life soo galo oo baryahan aanan life soo gelin waxay ku caddaynaysaa in dadka soomaaliyeed been loo sheegay saadiq john aan qabsaday dhuusamareeb saadiq john aan waxaas oo dhan waxba kama jiraan saadiq john dhuusamareeb ma qabsan karo meel gudaheed ma abaabuli karo waxaa ku sugan ciidamada gorgor iyo danab oo qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka amar qaata abandulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ka amar qaata ku sugan ciidamada sida gaarka u tababaran nis ee ka amar qaata Faad Yaasiin ee hoostaga madaxweyne farmaajo ayaa jooga waxaa jooga oo la geeyay maalin dhaweyd ciidamada haramcada oo sida gaarka u tababaran ee ka amar qaata madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo marka waxba kama sameyn karaan محيري يقول علي thank you حرم عنه وجهنا حرم على جوجته دنب waxaa joogta danab iyo gorgor iyo nis oo hogaaminayo in aniga imaadaynahay oo meesha joog aan adeerkay dhalay oo hogaaminaya ciidamadaas marka meesha kaliya waxaa la rabaa in oo nimo la tago ii sheeg maxaa la yiraahdaa in lagu dilo dadka lagu qaarijiyo dadka lagu asasiinay waa meesha kaliya fiqi uu joogo iyo saadiq john lagi marka ujeedkooda ay damacsan yihiin odawaa iyo waxaa kamid ah in lagu cabsi geliyo xildhibaanada nabadii nolol in la dilo oo la asasiineeyo xildhibaanada nabadii nolol ama nin walba oo taageersan fikirka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wax kale uma tegin saadiq john xamar waxba kama qaadi karo farxan waxaa ka taliyay farxan qaroole gobolka banaadir oo aragtin cunugaas yarkaayo aqoon-yahanka oo la dheeraha aniga adeerkay dhalay marka waa iskaga tegi wuuna ogaaday in gobolka banaadir maanta laga bilaabo ay ka dhamaatay dowladduna ay qorshe fiican u dejiday si aysan mar walba tuugo dambe iyo abaabul dambe aysan u imaan labada shabeellada dhexe la qabto ciidan gaari cabdibilaa saaran oo 5 qabiila aysan jirin ninkan waa habargidir kan waa dir kan waa xawaadle kan waa isheeg majarteen kan waa mareexaan shantaasna gaari la wada saaraya kan waa gaal jecel kan waa leela kase kan waa dir kan waa hawiye saasa baabuurta loo kala dhishiika ninka wada cabdibilaa ninka wada dhalinyarada isku dhaf marka ma jirto inuu yahay dhig khaligiis inuu soo tago marka ma heli doonaan sida ayaan doodin gaariyaal iska soo kaxistaan oo ay hub badan ay sameeyaan laakiin already waa down nimankan waa la dilay
sooma soo kacayaan maxamedoobe iyo dani waa u dhammaatay doorashada waa la qabanayaa shak kama taagna haddii xildhibaan la keenin iyo xataa mar walba madaxweynaha imaanaya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo marka waxyaabaha uu galmudug u tegay intaas keliya waay qof walba aqoon leh inuu dareemo galmudug fiqiha joogo waxaa lagu leeyahy madaafiica laga soo garaaca magaalada kusoo dhacayaan saddexda wallaahi waa kugu dhaartee hataa outside-ka magaalada dhuusamare madfac kuma soo dhici jirin markuu uu sheekh shaakir joogo ma isweydiiso ma haystaan ciidan awood leh ma haystaan ciidan awood leh ma haystaan ciidan tiro badan ee ahlu sunno saasay taa way ka xoreeyeen maxaa la yidhaahdaa way ka xoreeyeen dhuusamareeb waxay xabadaha waxaa la isku dagaali jiray tuulo u dhow dhuusamareeb ayaa la isku dagaali jiray elboorka dhuusamareeb xabad ma lagu soo ridi jiray ma isweydiisay in magaaladii gudaheeda dhuusamareeb xabad lagu madaafiic lagu garaaco adi maad isweydiin ma ogid anna waa oga haddaad ogeyn waa kuu sheega qaado fiqi ayaa wasiirka amniga galmudug ah waxba ma qabto wuxuu ka soo hadlaa maalin walba dhuusamareeb wuxuu ka hadlaa farmaajo oo muqdisho jooga iyo xabadihii lagu riday xasan sheekh ayuu ka soo hadlaya dhibaatada galmudug ka socotana maba ka hadlayo saleemaan iyo ceeraa meel isku dhow xanan buure meel la yidhahdo isku dilaya saleemaan iyo ceer aa meel isku dilaya mararkiisi maxanugiis laba beeloodoo kalea waxay isku dagaalayaan deegaan isku dagaalaya waxba kama qabanaya ma isweydiiso waxa meesha loo geeyey oo halkaasi loo geeyey oo qoorqoor u geysta mataqaana wixii ka fikri doonaada qoorqoor iyo baalkii ishaga wixii farmaajo taageera ayaa meesha loo geeyay bal warkayga si fiican u geyso in meeshaasi qoorqoor iyo ra-iisul wasaaraha inay wax ka qabtaan looga baahanya labada nin ee wax ka og waayo mashinka saadiq john dhuusamareeb loo geeyey fiqina uu meesha u joogo maaha waxay ka qaadi karaan male dadka dhuusamareeb jooga iyo dadka deegaanadaas kala jooga fiqi iyo maha salaad iyo saadiq john ilaahu diitiga saaris waxba ka qaadi kari waa kuu dhaarta beesha galmudug deganay ugu yar hadday isku tagaan xataa waxba kama qaadi karaan laakiin meesha waxaa loogu talagalay nin walba waa mahadsanta qof walba waa mahadsan kumadiiniin ma la akri karo marka waxaan rabaa inaan u sheego meeshaasi waxaa galmudug waa very dangerous waxaan rabaa qof walba inuu maanta fiidooga sheergareeyo galmudug oo fiqi joogay saadiq joonna tegey saddexda wallaahi waa lagu dilaa saddexda wallaahi waa lagu dilaa cid walbaa lagu dilaa ra-iisul wasaaraha lagu dilaa muxuu yiri kan waryadkan iyo waxaas ma akri kare ra-iisul wasaaraha lagu dilaa madaxweynaha lagu dilaa cid walbaa lagu dilaa meeshaas أنا هدي إني شيء إفتين وما سنته قرقر يدقبلوا واسكمين دقبلوا يقرقر واسكمين مالين دولة التاجرية مالين الشات كلوتا مالين سو حش حبت قلنا أركي مريسي فاهم ليش سو اسكت دوبا يا أركي مالين سو ولا فرماجو على شقي دولة على شقي واي مريسي فاهم ليش قرقر يدقبلوا واسكمين markii galmudug wax ka socdana waa ogyahay fiqi wuxuu meesha u geystana waa ogyahay laakiin madaxweynaha markuu uu tagayo laba beri ka hor waxaa tegaya koofi guduud iyo haram aaga dhan looma ogola fiqi isagoo wuxuu imaanayaa aan hal qori wadan madaxweynaha oo salaami maraysi faanus laakiin marru dilla marru dhila waraa lacagtan qaaday madax ku dhuf waa jeclaan lahayn xashi sheekh shariif iyo farmaajo u dhinto laakiin maxaysan ogeyn inay ka hor dhimanayaan cabdiraxmaan cabshakuur ma og wuxuu ku leeyahay farmaajo waa dhimana doorasho intaa la gaarin farmaajo dhibana ku leeyahay ilaahu diintiga saarnaa beenishay laakiin isaga ma og inuu kor dhimanay wuxuu moodaa in isaga loo qoray inuu 100 sano gaari abareys farmaajo uu ku dhimanayo 50 ama 45 uu ku dhimanayo dadka noocaas ayaa dalka Soomaaliya raba in aysan lugoyn marka rooble waxa laga rabaa siyaasadda galmudug ka socoto inuu la socdo rooble waxa laga rabaa nimankan mucaaradka ee muqdisho jooga abaabulka ay wadaan inuu la socdo qoorqoor iyo doqbilow waa isku mid haddaba ogaada doqbilow iyo qoorqoor wallaahi oo billaahi oo talla waa isku mid maalina farmaajo taageeriya maalina farmaajo ka soo horjeeda qof walba Soomaali inta soo ogaada galmudug waxa saadiq john loo geeyay waa assassinato laakiin cid dili karaan hadila أنا ميديري كان أنا كلها تاي فقي يصادق جون كلها تاي
gacmaha la igooyo xataa inaysan saas ii fiiri karin ilaahu muslimada iga saar dadku isma yaqaanaan laakiin iyagu waa yaqaanaan aniga mar ii imaan lahay saadiq john xamru joogay markaan dhahay waa lagu xiraya waa lagu dilaya tugtug dhalata maragay si fiican dhigis saadiq john iyo fiqi iyo maha salaad iyo odawaa ilaahu gacmaha goynaysa imaan karin gacmahaas allah iga gooyo kitaab jaamacan kugu dhaaran kula tahay nin xamar jooga oo wax ka sheegay aysan u imaan karin hal istaaf mooti hal biskoolad mooti ma isweydiis adeer anigu waxaan ka dhashay dad laan dheeraa farmaajihii faadi yaasiin halkaan igu hay galmudug markaan tagana raganimadeeda ku jooga mararisi fiican dhigeys galmudug markaan tagana raganimadeeda ku jooga qof walba waa intaas inuu ogaado laakiin waxaan leeyahay oo ugu digaya xildhibaanada dowladda soomaaliya taageersan ee kuwa raba inay soo noqdaan ee nabadii nolol iyo kuwa rajaynaya haddii inay ku guulaysaan xilal cusub waxaan leeyahay galmudug iska ilaaliya galmudug abaabula ka socda lagu qaarajinayo xataa ma aha in hal nin la dilay ugu yaraan 20 nin oo dowladda taageersan hal maqaayad fadhida ama hal hotel fadhiya in qof ismidaamina loo geliyo oo leeyahay isku qari shubne bal warkayga si fiican dhigayso laakiin waxaan u sheegayaa saadiq john iyo fiqi iyo maha salaad iyo odawaa iyo saabir lugay iyo abshir buqaari iyo sheekh shariif iyo xaaji sheekh ima cabdiraxmaan cabdi waxaan u sheegaa god walbaad qodasiin yaa intaad qodaysaan qaybinana intaas la ogaada intaad qodasiin aan qaybinana wallaahi wabilaahi taala dhaqdhaqaaq walba aad wadiin dowladda waa la socda taliya faadi yaasiin waa la socdaa taliya farxaan qaroole waa la socdaa saraakiisha niisa waa la socdaan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waa la socdaa wasiirka amniga waa la socdaa cid bini aadana dhaqdhaqaaqiina la socon haba yaraatee ma jirto intaad qodasiinaan qaybinana intaas ogaada cidaad wax ka qaadi doontiina ma jiro kursigan madaxweyne farmaajo ku soo noqon doona mana ka kici doona farmaajo ku fadhinaya mana ka kici doona markay si fiican dhigeyso waan ogahay inaad dad abaabuleysiin oo wasiirre iyo xildhibaano iyo agaasimayaal dowladda taageera inaad xogta dowladda ka heshiin waan ogahay sirtaasna waa helay cidda kaliya la wadaagayo waa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo anigu ma rabo inaan taan nin u sheego uu berinay ugu soo noqoto ma rabo markay si fiican dhigeyso أنا أقول جدا مركب وحال رأى قفل بقى مواد الصومالية إنه فيديو قاعد جالسيو أبابل كجلم ذو كالصعدة معها أبابل فرماجو حلو قاعد كرمان أبابل والله فرماجو حلو قاعد كرمان قرقرة ما نقول مش بده أو سيد تقبله اسمه بدلي أي واحد قاعد له لكن وحيني شيء يا وحال كاز كالصعدة وأساسينات بس اسمي دامين إن اللي يرادوا نكان يا واي مريحان نكاس يا واي إيشك حوالي نكاس يا واي سليمان نكاس يا واي عير نكاس يا واي دودبل نكاس يا واي انت فرماجي تاغيرسي مي ها واي او دورشدود اي تاي قلمدو ها واي ويغا سلف لي هذا سدح اسك داف مالين كلا رادي هل مالين ايكو ميل فدي لباتكود هل انه اسمي دامين لو غلي او لي هذا اقول ورك ماشي اسكو ديتان والله وبالله وتالله wax kala ma cid wax kale wax qaadi karaan ma galmudug dad isku tagay oo isku darsado hadii deegaanka dadka degan ay u fahmi waayeen qoorqoor wixii loo dhiibay cid walba kursigeedii hubkeedii qaadanay nin walba hubkiisa iyo way nin walba waa tirsado laba suug hal cabdibile hal beka todoba bekaim intaas qori yar yar bitem cid walba inta hub laga qaad galmudug waa qoratay meel ku qoratay waana dhiibtay waxba kama jiraan warkaas waa warkii doqbilow xaaji doqbilow warkiisa daad adiga waxa ku saaran ba maxaa ninkii daar cali soo ku saaran adiga murtad weyn ah tahay murtad weyn ah tahay bal warkayga si fiican dhigeyso adar farmaajo inoo waxba kama qaadi karto farmaajo waa in ka aqoon badan yahay waa in ka cilmi badan yahay waa in ka hub badan yahay waa in ka awood badan yahay waa inuu turaya kaliya gacan ku dhiigle uu ka carraa farmaajo in lagu tilmaamo laakiin dadka gacan ku dhiiglayaasha ee dadka laayay ee qabiil ka shaqeeya يا ريبلي يا هوية يا هوية يا هوية يا بجالي يا مرصدي يا برجدري يا بابا جاب بابا جاب وانتر وحاسا وحيين قام كل يجليال بيجوا مدة الصومالية بنيستي مقالة دبات ودين وحنا عاوز صومري
oo aan hortiina aad facebookgay ka arkaysiin inaan ka soo bilaabay x control afgooy ilaa aan ku tegayay degmada wardhiigley saas awood taleefanka saas magaalada dadka ciyaalka dadka soo gudoomiye muwaarata ma magaalada Muqdisho saan nalka uga shidan habeenkii hadda gabar soo wacday Mareykanka waxay tiri waa caawa khayr gelis wallahi ana isdeen hal saac magaalada iyo 6 saac waa lagu kaltay magaalada Muqdisho nabadda ka jirta iyo barwaaqada ka jirta iyo dhiirigelinta dadku inay shaqeystaan madaxweyne farmaajo keen waxa farmaajo looga soo horjeedaa ama qabiil looga soo horjeedo ama kursi jecel looga soo horjeedo ama lacag la cunayo looga soo horjeedo farmaajo kaliya wax looga soo horjeedo ilaahina waa ogyahay anna waa ogyahay adna waa ogtahay maxaad sidaan u sameeyday inay Muqdisho iftiin noqoto 7 saac iyo 8 saac oo habeenimo in Muqdisho la helo maqaayad 24 hours ilaahan ku dhaartay iska maqribka inaad maqaayad heli jir maqribka libinta loo diiday iyo horumarkii barwaaqada loo diiday habaarkiina iyo farmaajo waa dhimanaa iyo farmaajo ma gaarayo doorashada ma gaarayo adiga waa noolaanay miya aan raaco qof walba inuu ogaado waxyaabaha jira waxaan leeyahay galmudug waxa ka socda waa mission ma hay abaabul ma waxa ma qaadi karaan ciidan iyo ku duuli karaan shiqaash meesha degan ku duulay ma abgaalka ku duulayaan ma habargiirta meesha jooga isku dirayaan ma mareexaan ku duulayaan balwarkayga dhigayso waa may su'aash waa may abaabulkoodu waa mission iyo isku qarxin iyo nin walba oo ii sheeg maxaa la yiraahdaa walaykum asalaam nin walba oo farmaajo li rikayaan way wallahi ninkan shiiqada way oo kuraastiisa waa galmudug ma sha Allah waa nabadii nolol hal dil al qarji bish intaas kale laakiin waxaan u sheegaa cid aad dili kartiin iyo cid aad wax ka qaadi doontiin ma jirto goobaha annaka aan ka codeyno haram cad iyo ciidamada gorgora noo joogto markayga si fiican dhigayso aan leeyahay fiqi iyo saadiq joonow wallahi godka qodisiin inta kala qaybinana intaad qodisiin qaybinana waa la soconaa madaxweynaha waa la socdaa Faadi Yaasin waa la socdaa cid walba waa la socotaa nabi loo ku jeeda marka mar walba guusha farmaajo lahaanay marka waxaan leeyahay Muqdisho waa nabad Muqdisho 7 saac oo habeenimo ayay waxay ahayd nabadii barwaaqo nimca ka jirta dukaanadu waa furan yihiin dadku waa cabsoon jireen iyadoo ciidamo islaamiga taagtaagan dadku iska ganacsanayaan ilaahay ka sako maxaa la yiraahdaa war waa inii sheegay war waa in kugu celiyay war rooble wuxuu isbedelay male war wax la inii sheegay ha dhageysanina war waa ku celinaya mar labaadan ku celinaya mar saddexaadan ku celinaya rooble isma bedeli mana isbedel doon rooble isma bedeli mana isbedel muxuu isku bedelay maxay si madaxweynaha isku dhacayaan guddiga doorashooyinka ee loo soo gudbiyay mucaaradku ay diidanayeen madaxweynuhu ula tagay 34 cunay 34 kale cusub hadda lagu soo daray guddiga doorashooyinka si fiican u socda madaxweynaha iyo rooble ma isku dhici karaan rooble 7 minutes waa ka jilicsan taas ogaad 7 minutes aa xilka laga qaado wallahi oo billahi oo tallahi 2 minutes xilka loo qaada wallahi oo billahi oo tallahi laakiin waxa la inii sheegay ha qaadin madaxweynihii iyo ra'iisul wasaare isku dhacay madaxweynihii iyo ra'iisul wasaare taleef xagee la jooga ma aniga saaxiibtayo oo caawana kale u aragtay ama waqtigii aan wixii lahaa intay weysay taleefka u dhigaysanaysa miya meesh waxaan ciyaalkan cabtooyda leefafka iska soo galayaan waxba ogeyn taabu inta iska soo gudbirjaan iyo qamri yeesay inaan anu intaas ay inii sheegay mar labaad mar saddexaad waan ku weelaa ra'iisul wasaare rooble gacanta ku jira gacanta warkayga si fiican dhigayso waa nin iska masaakiina waa nin goori socda isagii madaxweynaha ma isku dhiciyaan mana isku dhici doonaan wallaahi waa inii dhaartay oo billaahi oo tallaahi soo weji ilaahi maaha saddexda wallaahi aan kugu dhaartay waxaan kugu dhaarnay waa war sax waa ka liitaa 7 minutes 2 minutes aan ku dhahay 2 minutes aan looga bixinaa madaxtooyda warkayga si fiican dhigayso adar dalkan anaa awood ku haysana ma bari kuma haysano farmaajo ka taliya dalkan ra'iisul wasaaraha isbedelay iyo faaduma isbedeshay iyo caasha isbedeshay iyo taleefanka la isku dhigay war waxa taadi taleefanka la isku dhigaysta maxay tahay ma wareysadi baby ma taleefankii qaboys may wakaana xagee joogna anag ra'iisul wasaarihi taleefankii qaboy madaxweynaha ruuxaasni ciyaalkan cabtooda ayay siin waalin youtuberada la rabaa in la ku kacsado
وحفهم وحيروان حماني رواني أبوران وحيروان علادي رواني أبوران وحيروان مدحويني رئيس الوزراء يسكون عن محيي لي شقادة الصعوطة أي ديدين شقادة الصعوطة أي ديدين لوركي سيفي عنديس لوركي سيفي عنديس نوين وحكوا هذا ما بحس رئيس الوزراء مدحويني واسكون عكرا أفي عربي الكاس كودو واسخنينا لو اني كلا فيك maxay sheegi عربي الكاس كودو واسخنينا madaxweynaha roob la isku dhici kara ma ku dhiin ma isku dhici karaan laakiin ma isku dhicin ilaahina ma isku diro dad badan ayaa jecel inay madaxweynaha tishiis ku furaan ay dhahaan roob la isku dhacayn maqlisiin war degdega inay haya ra'iisul wasaare madaxweynaha dadku ayaa biin iska dhigaysan abaarka baad youtube ku galna hooyo waa arkay ku dhufo والله هوجي من رئيس الوزراء مدحويني أصدقائي أنا موالتينك وردقبلو إيه صال بدار إيه شينو علي إسكداي والله وبالله وطلع عافمات كينو مرة أنا عاوين الله يفسوق أنا هوي إسبتال كوهي أو هبيني إيمان أنت وانتفاع أول سبين كينو كنا فرمان أنتين هي وعاوين ده قد وجه دين والله وبالله وطلع تانكي رشيد وما سنت وحن أسوق الكلية إن اللي يراد رئيس الوزراء يسكت سوق لي صادق جون ودوس مريم قبصة بابا صادق جون لبعض تكنيكال اللي تجي بابا بيراد هذا ورلبعض ما صدنا دولته سويدي محو بدري كرا محو وحكي قبل كرا ما ماله قبصة كرا على هذا ما عملوا ريك كرا إيش شيء محلي يراد دوس مريم ويري كرا وين واحد السويدي ورنيك أن تكنيك هذا هو حقوق ويري كرا مش قالوا ويرا ما قالوا ويرا ما كان مساكين توديجان كدجن ويرا ما هبرجيرت ويرا ما مريحان ويرا dadku inay Swediyan wayna tira technical la tagay way technical maxuu ku qabanaa yaan been leeyni shay yaa been leeyni shay saadaq joon maxaa la yiraahdaa in shay maxaa la yiraahdaa iyo kuwan kale mucaaradka iyo waxay dalkan ka yihiin habeeraatay ma jirto waxna ma bedeli karaan dawladana cid ka hor imaan karta male markay dhiis yaan been leeyni shay yaan fiyus leen ku raadin yaan youtube lacag leen kaga raad iska daay ma iska dhaafi kartiin horta ma dhaafi kartiin facebook ana haysatiin xaqiiqada jirta aniga ra'iisul wasaaraha roob la hadis maxay ni raad ko qayre iyo farmaajo isku dhacay ma og laakiin hadii jirto soo bixi laakiin anaku waxaan rabnaa in dawladeena iyo ra'iisul wasaaraha madaxweynaha markii dambe way soo baxaan waad og insaan uga falcinin saram gabadhaan uur meelada ma leh هذا أورا اللي وجد على شبورة بس وحن جرين لبا أموره مدحوينها رئيس الوزراء أنا حكت قدام بيسي أو عاو مركي اللي إيش شيء عن لحريري وحي إيش شيء إني سلت جوجين بقى عاو سلع الشيئين بقى مدحوينها أنا بريت الدوفي حك كلام ما مني شيء لا وأنت أسكبها إني عاو سلت جوجين رئيس الوزراء مدحويني بريت مدحوينها الدوفي والله حك كلام ما إني شيء حتى ماشي هذا إني شيء مدحوينه فرماج بريت بوقشة تركيا وصعدة وعزومات ومدحوينها تركيا وفري مرقي يسيف عنوس وبريت ودوفي أرضتك وحان لي أقسم مكان أرضتك وحان لي أنا وإحنا نسوي دي نين مدحوينها سفر كيسي والله وبالله وطلع إذا عد مرقي يقريس مدحوينها إن أنا أوسن حوق حفيز كيس اللي يسوسين مدحتوي إذا انتقى رقم أنا غانم كحيرنا هاي صعد بالوحي ودم بيها ولا لسعسي يا مدحينها عافمات كيس يشغديس يوحى وصعد ولا لسعسي مركا إني ضد فيوس إنه كلها سدان أو يوتيوب تشكدفت الله هايو بتقبلوهم في الصدق بحير بالرجال ساري مدح يا وحاصل يوم كده مدحوينها هي الرجال ساري هو اسكو دعكران عربي الكاس كله لكن إلهي مسكدرو إلهي مسكور كانوا عدو بدن أيام لنا معارض كوار رمان إن روبلا مدحوينها اسكو عن وين رمان لكن أنا مرن هرمان إني إلى حش الشيخ لبرئيس الوزراء عيري بابا شافات وحاصر مان برئيس فاندوس لبنت أوجاري فرماج مرة إني جارن يعني لقسين إني كأي قسيني هبو بونين رئيس الوزراء مدعويني أسكول عيمي وأسكول عكرا لك واحد ليني شجوا بين من أسكول عين وصاحبه عاو إسر جوين عاو لاني شجي سنين مدحوينها بريتو السفر ذلك تركوا بسعودة مقالة أنكرة أيها الكاس عسومات وحكاية مدحوينها
adruqan insha allah madaxweynaheenii kale oo aan jecelnaha waaye insha allah waxaa halkaas u tagayna waa abaabul iyo sidii dalkan ciidamada cirka iyo badda iyo loo dhamaystiri lahaa maraakiibtooda iyo wax dhan marka waxaan rabaa xiddigtaankii waxaa aadayaa turki maasha allah marka waxaan rabaa dadka balaayada buubuuninaya dadka wax walba inii sheegaya waa inii sheega waa in kugu celiyey mar labaad waa mahadsantahay waa mahadsantiin marka rooble iyo madaxweynaha waa isku dhici karaan laakiin hadda waxay sheegayaan oo la buubuuninayo waxba kama jiraan shaqada sidii la rabay ku socotaa dowladnimada sidii la rabay ku socotaa doorashadii qorshiyaa u degsan waxay rabaan in doorashada la istaajiyo ra-iisul wasaaraha madaxweynaha isku dhacaan ra-iisul wasaaraha xilka laga qaado babajabajabajaay waxaasi abaabuleen madaxweynaha dalka xukuma madaxweynaha dalka xilka qaadi karaa rooble waa laga qaadi karaa faadi yaasin waa laga qaadi karaa cumar finish waa laga qaadi karaa dalka waxaa xukuma farmaajo intaas laha ku daaqo ninka u sareeya dalka amarkiisa la qaadanayo taliyaha ciidanka u sareeya waa madaxweyne farmaajo taliyaha ciidanka xoogga dalka ciidamada qalabka sida oo dhan taliyahooda madaxweyne farmaajo waa marka waa ini salaamayaa guul baa ini rajeynayaa saadiq jan waa inii sheegay dhuusamare wuxuu ka doonay mashin iyo xildhibaano la dilo iyo halkaas in laga abaabulo ayuu ka doonay laakiin waxaan leeyahay god walba aad qodosiin dadka soomaalida waa la socdaan guul baa inii rajeynayaa haddaad igu cusub tahay youtubeka subscribe saar gamaraalka farleegna saar guul baa in kaga tegey mar kale waxaan leeyahay madaxweyne farmaajo ha guulaysto mar kale soo noqdo insha allah guul iyo gobnimo in kaga tegey wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu